wuxuu ku saabsan yahay constitution, democracy and human rights. Dastuurka dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadamaha. Constitution and constitutionalism. Marka hore constitution kan arki doonaa, democracy iyo human rights kana xagga dambe ku arki doonaa. Marka dastuurka iyo sidoo kale constitutionalism waan arki doonaa. Dastuurka dhaqangelinta dastuurka leeyahay. Dastuurka marka waxaa la erey constitution badanaa waxaa loo isticmaalaa baa leeyahay muxuu ahaa ama waxaa badanaa loo adeegsadaa baa leeyahay macnayaal kala duwan. Saalan constitution of a body xubin gaar ah ama hay'ad gaar ah ama urur gaar ah constitutionku iska leeyahay. Constitution of trade union midowga ganacsi dastuurka ay qorteen. Constitution of political party macnayaal kala duwan loo isticmaalaa. Laakiin political sense ama macnaha siyaasadda dhexdeeda markii lagu jiro waxaa la yidhaahdaa constitution waxaa laga wadaa the constitution of the state. dastuurka iska leedahay dawladdu. Marka waxaa la yidhi waxaana loo qeexaa inuu yahay fundamental or basic law of state, xeerka ama sharciga asaasiga ee dawladda iska leedahay, which sets out the structure of the state and also lists the rights of citizens alongside the limits on the power exercise of a government. sidoo kale wuxuu sheegaa qaab dhismeedka ay dawladdu iska leedahay. Sidoo kale wuxuu taxaa xuquuqaha ay iska leeyihiin muwaadiniintu. Isagoo sheegaya sidoo kale xadka ay iska leedahay isticmaalka awoodda ay xukuumaddu isticmaali karto oo muxuu xadinta awoodda dawladda iyo waxyaabahaas oo dhan buu u qeexaa. Marka waxaa jira haddaba features u gaar ah dastuurka oo lagu yaqaano oo sharciyada kale kaga duwan yahay. Constitution waxaa la yidhaahdaa distinctive features that distinguish it from any other laws. Wuxuu leeyahay baa la yidhi features ka sooca sharciyada kale. Marka kuwan soo socda ayaa ka mid ah muxuu distinctive features ka iska leeyahay muxuu constitution. Midda koowaad waxaa lagu yaqaanaa dastuurka generality. Dastuurka wuxuu hadlaa si guud. Waxaa ka dhigan tahay faahfaahin dheeri ah ma galo. Sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa permanence waa joogto. Dastuurka waxaa loo dejiyaa ilaa iyo waqti aan cayineyn. Marka la dejinayo waqti laguma saleeyo ilaa waqti aan cayineyn baa la dejiyaa. Marka waa joogto weeyaan sida sharciyada qaarkood meel gaarka ama waqti go'aan kaliya shaqeynaya oo kale ma. Sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa supremacy sarreyn. Agreed sharciyada kale oo dhan ka sareeyo sharciga ugu sareeya ee waddan iska leeyahay. Sidoo kale waxaa la yidhi waa codified document. Waa documenti habaysan oo qoran. Badanaa waxaa loo qoraa muxuu ahaa hal waa single document hal document qoran weey. Waxaa sidoo kale lagu yaqaanaa allocation of powers. Awoodaha ayuu kala qoondeeyaa. Dawladda laabaheeda kala duwan iyo sidoo kale doorka dawladda iyo shacabka waxaas oo dhan kala qoondeeyaa. Waxaa jira hadda ujeedooyin waaweyn iyo sidoo kale shaqooyin oo iska leeyahay dastuurku qabto. Waxaa ka mid ah it serves as a framework for government. Waxaa la yidhi dawladdu waxay u adeegsataa as a framework. Muxuu ahaayey hanaan ay raacdo oo shaqooyinkooda si ay u qabato ay raacdo ayay u adeegsataa. Sidoo kale wuxuu xadidaa the powers of government. Awoodaha ay iska leedahay xukuumaddu sidoo kale wuu xadidaa. Waxaa kaloo ka mid ah it protects individual and collective rights of citizens. Waxay ilaalisaa baa la yidhi xuquuqaha shakhsiyeed iyo kuwa wadareed ay iska leeyihiin muwaadiniintu. Sidoo kale waxaa ka mid ah shaqooyinka uu qabto waxaa la yidhi wuxuu adeegaa inuu yahay sidii muxuu ahaa sharciga ugu sareeya waddanka waa supreme law or highest law of the country. Sidoo kale wuxuu keenaa baa la yidhi government legitimacy and stability. Sharciyada iyo sidoo kale ama deganaanshaha dawladda iska leedahay dastuurka ayay ka heshaa. Constitution sidoo kale waxaa weeyaan baa la yidhi wuxuu yahay roadmap ama qorshe si loo asaaso muxuu ahaa goals iyo values ahdaaf iyo qiyam bulsho iyo si loo asaaso wuxuu yahay baa la yidhi wixii qorshihii laga duway. Marka dastuurka waa la qaybiyaa classification of constitutions qaybinta ama abaabulinta dastuurka dhinacyo kala duwan baa marka la qaybiyaa. Marka based on form qaabka uu yahay inoo ku saleynayo dastuurka waxaa loo qaybiyaa labadana la qaybiyaa. Waxaa loo qaybiyaa written constitution dastuur qoran iyo unwritten constitution dastuur aan qorayn. Marka mid kasta wuxuu leeyahay merits iyo demerits meelo ku fiican yahay meelo uu ku liito ayuu leeyahay ka qoran iyo ka aan qorayn. Sidoo kale iyadoo lagu saleynayo based on complexity of amending process iyadoo lagu saleynayo baa la yidhi ka kanaanshaha hanaanka wax ka bedel. Dastuurkan haddii loo baahdo in wax laga bedelo hanaanka la maraya intii la ka iyadoo lagu saleynayo sidoo kale waxaa loo qaybiyaa dastuurka rigid constitution oo ah dastuur adag waxay ka dhigan hanaanka in wax looga bedelayo loo maraya ahaa muxuu ahaay ka kan. Sidoo kale min labaadna waxaa flexible constitution dastuur
si dhib yar looga bedeli karo sidoo kale iyadoo lagu saleynayo muxuu ahaa degree of practice heerka ku dhaqan tiin leeg dastuurkan la dhaqan geliyo lagu saleynayo laba isagana loo qaybiyo oo waxa loo qaybiyo effective constitution dastuur shaqeynaya oo dhaqan galay oo lagu dhaqmo iyo sidoo kale mid nominal oo nominal constitution dastuur magaciyaal oo iska qoran laakiin aan lagu dhaqmin sidoo kale iyadoo lagu saleynayo nooca qaab dhismeedka dawladda isagana laba loo qaybiyo oo federal constitution dastuur ay leedahay dawlad federaal oo dawlad deegaanka ama dawlad goboleedyada dawladda xubnaha ka ay jiraan iyo unitary constitution oo dastuurka iska leedahay dawlad muxuu ahaay hal meel looga taliyo awood oo dhan hal meel ku urursan tahay constitutionalism waxa la yiraahdaa waa dhaqan gelin dastuurkii oo lagu dhaqmay marka constitutionalism waxay ka dhigan tahay bali waa caqiidada that government should be faithful to their constitutions xaqiiqada bali caqiidada in dawladdu ama xukuumaduhu ay daacad u noqdaan dastuurkooda sidoo kale maadaama bali ruleska iyo lawsku ay keenayaan muxuu ahaay ay yihiin kuwa ilaalin kara xuquuqda muwaadiniinta ka ilaalin kara ficilada iyo go'aanada muxuu ahaay aan ku saleysnayn ama ficilada iyo go'aanada muxuu ahaay kadiska aan ku saleysnayn muxuu ahaay sabab ay dawladdu sameynayso democracy and democratization dimuqraadiyadda iyo dimuqraadiyiinta marka democracy waxa la yidhi macnaha waxay ka dhigan tahay waa government of the people or government of the majority hal xukuumadda ay dawladdu ay dadku iska leeyihiin ama xukuumadda aqlabiyadda kolba inta tirada badan xukuumadda ay dhisteen marka dimuqraadiyaddu laba qayb weeyaan waa mid toosa oo dadku si toos ah ay wax soo doortaan ama dadkan ku matalaya ay iyagu si toos u soo xushaan iyo mid ay wakiillo u soo maraan oo indirect democracy ama representative democracy marka values iyo principles iska leedahay dimuqraadiyaddu baa jira qiyam iyo sidoo kale iyo mabaadi ay ku taagan tahay dimuqraadiyaddu marka core valueska iska leedahay democracy waxaa ka mid ah liberty or freedom xorriyadda cadaaladda iyo sinaanta ayaa ka mid ah valueska iska leedahayna waxaan jeedaa principleska iska leedahay asaasigana waxaa ka mid ah kuwana ka mid ah waxaa ka mid ah popular sovereignty madax banaanida muxuu ahaay dadweynaha bulshadu inay madax banaan tahay dawladda iyo muxuu ahaay cidda maamulaysa iyagu inay muxuu ahaay soo xushaan ay u madax banaan iyo waxaa kaloo ka mid ah constitutional supremacy sarreynta muxuu ahaay dastuurka rule of law sarreynta sharciga waxaa kaloo ka mid ah secularism calmaaniyadda diinta iyo dawladda in la kala saaro sidoo kale muxuu ahaa waxaa ka mid ah waxyaabaha u ah mabaadi'da asaasiga u ah separation of powers awoodaha in la kala saaro awoodaha ay dawladda laamaha dawladdu iskale in la kala saaro sidoo kale waxaa ka mid ah free fair and periodic election waxaa la yidhaha doorasho xora oo xalaala ama cadaalada sidoo kale waqtina leh xilli lagu qabto 4 sano mar ama 5 sano mar la qabto hagan inta free waa in marka hore cid kasta ay u tartami karto fairna waxaa laga wadaa in ay dadka oo dhani ay muxuu ahaay u siman yihiin muxuu ahaay hanaanka iyo qaabka waxa loo in loo si cadaalad loo qabto sidoo kale waxaa ka mid ah majority rule minority right hal yidhi muxuu ahaay xukunka aqlabiyadda iyo xaqa aqaliyadda dadka tirada badan in markasta xukunka ayaan dadka laga tirada badan yahayna ay xaq leeyihiin saalan doorasho haday dhacdo cidda codka ugu badan hesha iyo ku guliyaha ayaa dawladda muxuu ahaay dhisanaysa ama xukuumadda soo dhisanaysa dadka laga tirada yaryahay laga tirada badan yahayna xaq bay leeyihiin waxaa kaloo ka mid ah muxuu ahaay principleska ay dimuqraadiyaddu u taagan tahay protection and promotion of human rights ilaalinta iyo sidoo kale horumarinta xuquuqda aadamaha waxaa kaloo ka mid ah multi-party system hanaanka xisbiyada badan democratization dimuqraadiyadiintan waxaa la yidhi waxa weeyaan waa process of transition waxaa la yidhi waa hanaan muxuu ahaay kala guur ah oo lagaga soo guuraya from non democratic to democratic regimes xukuumadda ama talis aan dimuqraadiyiin laga soo guuro ku dimuqraadiya loo guura la yidhaha dimuqraadiyiinta marka dimuqraadiyiinta markii la sameynayo waxaa jira 3 qaybood oo 3 elements oo ay ka kooban tahay midda koowaad waxaa weeyaan bali waa the removal of the authoritarian regime ama taliskii muxuu ahaay dawladdii kelitaliska in meesha laga saaro midda labaad waxaa weeyaan installation of democratic regime midii dimuqraadiyeed in muxuu ahaay la dhiso iyo the consolidation or long term sustainability of the democratic regime waxaa la yidhaha adkeynta ama inay waqti dheer sii waato sii jirto
dowladdii dimuqraadigeeda ee meesha laga saaro marka saddexdaas tallaabo ayay martaa dimuqraadiyiintu marka waxaa jira actors of democratization dimuqraadiyiintu actors bay leedahay dad saameyn ku leh actors waxaa la yidhahdaa cidda go-aan ku leh ama qayb ka ah ay leedahay marka waxaa ka mid ah political partieska xisbiyada siyaasadeed baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah warbaahinta iyo civil societieska ama bulshada rayidka ururada bulshada rayidka iyaguna waa qayb bay ku leeyihin human rights xuquuqda aadamaha xali human rightsku waa are basic to humanity bini'aadantinimada ayay aasaas u yihiin they apply to all people everywhere cid kasta ayaa muxuu ahaa xuquuqdan iskale muxuu ahaa meel kastaa joogto an understanding of human rights is an important part of our individual status as human beings xali inaan fahanno xuquuqda aadamiga waa qayb ka mid ah muxuu ahaa qayb muhiim oo ka mid ah muxuu ahaa muxuu ahaa our individual status as human beings xali maqaamkeena shaqsinimo aynan beenanahay ana sidoo kale our collective status as members of the global community sidoo kale maqaam wadareed oo ah inaynu xubin ka nahay muxuu ahay global community bulsho caalami ama human kind marka the universal declaration of human rights waxaa la yidhi baaqa caalamiga ee xuquuqda aadamaha articlekiisa ama qodobkiisa labaad wuxuu caddaynayaa human rights inay ama xuquuqda biniaadamka waxaa iska leh every human being ruux kasta oo biniaadama without distinction of any kind iyadoo nooc wax gaara lagu soocayn ha ahaato muxuu jinsi midab lab ama dhadig sinjigiisa luuqadiisa diintiisa muxuu ahaaye aragtidiisa ama diintiisa aragtidiisa siyaasadeed ama aragti kaleba ahaatee dhalashadiisa asal ahaan halku kasoo jeedo hantida uu haysto dhalashadiisa ama maqaam kale iyo waxba lagu salaynayn cid kasta oo biniaadam xaq u leeyahay weyaan sidaa darteed shardiga keliya ahee waxay tahay inuu buuxiyo si uu xuquuqahan u helo waxaa weyaan baa layidhi inuu noqdo human biniaadam inuu noqdo marka universal waxaa la yidhi xuquuqda aadamuhu waxyaabaha ay istaamada waxaa ka mid waa universal waa kuwa caalami waxay ka dhintay meel kasta iyo cid kasta ayay ka sameeyeen waddan kasta iyo caalamka meel kasta tagtay human rightsku waa meel kasta way ka jiraan waa universal oo waa caalami sidoo kale waa inalienable waa kuwa aan wax laga qaadi karin sida aan bini'aadantinimada lagaga saari karin xuquuqaana lagaga qaadi karin sidoo kale waa interdependent and interrelated kuwa isku tiirsan oo isku xidhan xuquuqdaada mid inaad hesho waxaa laga yaabaa inay mid kale ku xidhnaado marka lama kala sooci karo human rights and responsibility qaybtana waxaa weeyaan xuquuqaha aadanaha iyo sidoo kale mas-uuliyadaha waxaa la yidhi human rightsku iyaguna sidoo kale waxay ku lug yeeshaan responsibilities and duties towards other people and the community mas-uuliyado iyo waajibaad kaa saaran dadka kale iyo bulshadaba marka waxaa la yidhi ashkhaastu badanaa waxay mas-uuliyad ka saaran tahay inay xaqiijiyaan inay helaan muxuu ahaa xuquuqooda iyagoo weliba fiirinaya muxuu ahaay iyagoo sidoo kale eegaya muxuu ahaay rights of others xuquuqaha dad kale tusaale ahaan exercising freedom of speech waxaa la yidhaha xaq ah inaad xorriyatul qowlka ama inaad si xore u hadasho inaad adeegsatahay should not infringe someone else's right to privacy waxaa la waa inayna waxyeello u geysanaynin ama faragelinaynin xaqa ruux kale iska leeyahay xaqa khusuusiyaadkiisa waxyaabaha u gaarka sharaftiisa oo kale iyo inayna xaqaasi kuwa ayna ku xadgudbaynin waajibaad baa ku saaran marka xaq kasta waajibaad ma la socdo waxaa la yidhi marka haddaba in la ilaaliyo muxuu ahaa lana tixgeliyo human rights waxaa la yidhi waa mid ka mid a shaqooyinka ugu muhiimsan ee qaramada midoobay and its agencies iyo sidoo kale hay-adaheeda waxaa ka mid a markaa sharciyo badan sidoo waxaa ka mid ah UN Charter ama cahdiga qaramada midoobay oo kale iyo Universal Declaration of Human Rights International Covenant on Political and Civil Rights waxaa qararka caalamiga ee xuquuqda muxuu ahaay rayidka iyo sidoo kale kuwa siyaasadeed sharciyadan iyo qaraaradan oo dhan waxaa loo saaray inay leeyihiin maxaa si loo ilaaliyo xuquuqda aadamaha loona horumariyo rights holders and duty bearers waxaa jira dad xaqlayaal iyo dad waajib saaran yahay marka right holdersku waxaa la yidhi waa those who are entitled to enjoy possess or claim a given right waxaa la yidhi waa dadka leh ama sheegta xaq gaara inay helaan duty bearerskuna iyaguna waa those who carry the obligation of promoting protecting and fulfilling these rights to the right holders iyaguna waxaa la yidhi waa dadka ay waajibay ka saareen horumariyaan ilaaliyaan sidoo kalena ay fuliyaan si dadkan xuquuqdoodana u helaan tusaalahaan oo kale ashkhaasta iyo muwaadiniinta oo kale waxaa la yidhahdaa waxay noqon karaan rights holders duty bearers sidoo kale way noqon karaan rights holders markay yihiin marka dowladda iyo hay-adaha iyo waxyaabahaas kale iyo ashkhaasta kalena iyaguna waxaa laga duty bearers inay noqdaan marka hal shakhsi adiga shakhsi keliya right holder inuu noqon karaa duty bearer noqon marka waxaa jira qaybo loo qaybiya muxuu ahaay xuquuqda aadamaha
waxaa ka mid ah civil and political rights xuquuqaha muxuu ahaayey kuwa rayidka iyo kuwa siyaasadeed waxaa la yidhaha first generation rights bale sidoo kale waxaa ka mid ah social and economic rights oo ah second generation rights iyo third generation rights of peace development and environmental rights derogations and limitations on human rights waxaa la yidhaha xadidaadda iyo sidoo kale hakinta lagu soo rogi karo muxuu xuquuqda aadanaha marka saddex xaaladood waxaa jira laba xaaladood waxaa jira baa la yidhi under which human rights can be restricted kuwaasoo baa la yidhi xuquuqda aadama la xadidi karo marka limitation iyo derogation waxaa la yidhi limitations waxaa la yidhi waa lawful infringements of rights waxaa la yidhi waa in si sharci xaqaagii loo fargeliyo ama loo hakiyo limitationsku waxay jiri karaan baa la yidhi for long period of time waqti dheer ayay jiri karaan derogationku iyagu laakiin waxaa weeyaan waa temporary non application and a suspension of rights waxaa la yidhi waa si kumeel gaara in xuquuqaagii loo hakiyo by the state dowladdu ay hakiso in abnormal or emergency situations xaalad caadi ahayn ama xaalad degdeg ah hadday timaado tusaale xaaladda mid dabiici ah mid gacan samays ha noqoto xaalad degdegii sababta keenay oo la hakin karaa marka Ethiopia dhexdeeda baa tusaale ahaan dowladda federaalka iyo sidoo kale dowlad deegaanadu labaduba waxay leeyihiin baa la yidhi awood dastuur oo inay xakameeyaan xuquuqda aadamaha maadaama labadooduba ay awood state of emergency ama xaalad degdeg kaga dhawaaqi karaan baa la yidhi in their respective domain dhulka ay ka taliyaan dowladda federaalka waddanka oo dhan kaga dhawaaqi karto dowlad deegaan kastana deegaankiisu maadaama kaga dhawaaqi karo awood bay leeyihiin baa la inay xuquuqahan xadidaan waxaa la regional states can declare in two conditions waxaa la yidhi xaalad degdega laba xaaladood keliya in bay ku dhawaaqi karaan waa haddii ay timaado natural disaster musiibo dabiici hadday timaado iyo sidoo kale epidemics cudur faafa haddii uu deegaankii ka talinayn uu ka qarxo ama ka dhaco xaalad degdega iyo labadaas jeer ku dhawaaqi karaan laakiin qodobka 93 ee dastuurka federaalku waxaa la wuxuu cadeynayaa in dowladda federaalku ay 4 xaaladood ay ku dhawaaqi karto waxaa la yidhi the council of ministers can declare a state of emergency in the following situations golaha wasiiradu waxay xaalad degdeg ku dhawaaqi karaan baa xaaladahan soo socda yimaadaan midda koowaad waxaa weeyaan external invasion hadduu dhaco duulaan dibadda ah sidoo kale waxay ku dhawaaqi kartaa dowladda federaalku haddii uu yimaado baa la breakdown of law and order when it waxaa la haddii burburo ama meeshu ka baxo sharcigii kala dambeyntii ama nidaamkii weliba when it marka baa la yidhi when it endangers the constitutional order marka uu kala dambeyntaas iyo sharcigaa burbur ku yimid uu khatar gelinayo muxuu ahaa orderkii ama nidaamkii dastuuriga sidoo kale marka baa la yidhi when it cannot be controlled by regular law enforcement marka aan lagu xakameyn karin sidii caadigahayd ama sharci hirgelin muxuu ahaay dhaqangelinta sharciga caadigahayd marka ayna soconayn in loo hirgeliyo xaalad degdegayana waa lagu dhawaaqi kartaa haddii breakdown of law orderku hadduu labadaas sababood ama labadaas arrimood keensado xaaladda dowladda federaalku dhawaaqi kartaa sidoo kale waxay ku dhawaaqi kartaa hadday dhacdo natural disaster sidii dowlad deegaanada oo kale iyo epidemic hadduu yimaado ama cudur faafo marka waxaa jira xilliyo aan la hakin karin ama xuquuqo aan la hakin karin baa jiro human rights qayb ka mid oo ama aan la hakin karin baa jiro marka waxaa jira there are also certain unique and inherent human rights waxaa jira xuquuq gaar ah oo sidoo kale bini'aadamku uu wato kaasoo aan la hakin karin under any circumstance xaalad kasta aan la hakin karin baa jira marka waxaa ka mid ah rights against arbitrary deprivation of life xaqaha baa in si muxuu ahaayey kadiisa lagaga qaado noloshii lagu dhaafiyo oo kale xaqa lama hakin karo sidoo kale xaqahan la hakin karin waxaa ka mid ah xaqaad u leedahay baa la yidhi inaad xor ka ahaato in lagu jir dilo ama si xun lagula dhaqmo oo arxandarra ama si bini'aadantinimada ka baxsan oo shar dhac lagula dhaqmo ama lagu ciqaabo sidoo kale freedom from medical or scientific experimentation without consent xorriyada xaqaad u leedahay xaqa inaad xor ka ahaato baa in tijaabo caafimaad ama mid sayniseed in lagu sameeyo adoon ogolaansho laga haysan tusaale dawo oo kale in lagu tijaabiyo adoon fasax laga haysan lama hakin karo xaqaad u leedahay sidoo kale xaqaad u leedahay baa in lagu adoonsado ama lagu dad adoonkaadha dad u adeegto sidoo kale xaqaad u leedahay in muxuu xaq ah in aad xor ka ahaato baa in lagu xiro haddii aad fulin kari weydo baa la yidhi contractual obligation heshiis waajibaad cid ku heshiisay haddaad awood u yeelan weyday inaad fuliso iyadana sidoo kale inaan lagu xirin xaqaha lagama hakin karo prohibition against the retrospective operation of criminals waxaa la yidhi inaad sidoo kale shuruucda ama xeer ciqaabeedyada muxuu ahaayey waxyaabihii horey u dhacay dib ugu noqonaya ama sharci
saameyn ku yeelanaya dhacdo intii aan sharciga la soo saarin ka hor dhacday waxyaabaha noocaas ah inaan sidoo kale aad xor ka ahaato dembi aad tusaale kale xilli hore dhacday criminal law hadda inaan lagu qaadi rights to recognition before the law xaq aad u leedahay in sharciga hortiisa lagu garwaaqso haganada cid kasta ay in sharcigooda u sinaato xaq ahna lagama qaadi karo sidoo kale freedom of thought conscience and religion xaq waa leeyahay muxuu ahaay aragtida xorriyadda aragtida damiirka iyo diinta iyagana sidoo kale laga xuquuqan la hakin karin ay ka mid yihiin marka xuquuqda bini'aadamka laba qaab baa loo hirgelin karaa ama loo fulin karaa waxaa ka mid ah international mechanisms qaabab caalami ah soolan ururo caalami ah waxaa jirta sheegayaan sida qaramada midoobay oo kale iyo aasaasan inay xuquuqda aadamaha ay ilaaliyaan horumariyaan sidoo kale waxaa jira urur goboleedyo loo aasaaso xuquuqda aadamaha horumariyaan marka labada qaab ayaa muxuu ahaay loo hirgelin karaa ama loo xoojin karaa xuquuqda aadamaha halkaas waxaa ku eg cutubkii shanaad oo ah cutubkii u dambeeyey koorsada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.